imkana Nigeria ay ugu gudbinay Paris gaar ah oo BBC du sameysay ayaa dabool ka qaaday mafia Nigeria oo caalamka ku xiran 10 dal oo adduunka ah ay ku xilayeen oo waxa la Black Axe oo waxa lagu eedeeyay dilal kufsi iyo jirdil Nigeria oo dhan ka dhacaya waxay xiriir la leeyihiin dambiye abaabulan oo caalamka oo dhan baa lagu leeyahay ku leeyihiin burcadnimo internetka ah oo malaayiin doolar lagu helo wariyaha BBC da Peter Markjob ayaa 12 bilood baadhay burcada BBC da Africa ayaa warbixinta inoo diyaarisay waxaanu idinka digaynaa inay ku jiraan muuqaalaha qaar ka dhibsan kartaan waa kan Cismaan Cabdi Xasan Makako waa mid ka mid ah oo basiibooyinka ugu weyn Nigeria waxaynu tagaynaa xaflad ay qabsanayaan kooxda Black Axe halkani waa meel aadan rumaysan karin bulaacado ayaynu ku dul soconnaa waana sida keliya ee aan ku gaari karno isku raranta ay joogaan kooxda Black Axe xubnaha waxaa lagu qasbaa inay si qarsoodi ah bayca u galaan haddii ay ku xadgudbaan qaynuunadana waa la ciqaabayaa waxaynu nahay xorriyad oo dirir waa ilaali aan ku ilaaliye cadaalad darteed ayaan dagaal iyo dilba u samaynaynaa rabshadaha kooxdan waxay sababeen dhimashada boqolaal qof oo aan waxba galabsan BBC da waxay caddayn kartaa in Black Axe ay xiriir la leeyihiin in ka badan 10 dal oo Yurub, Afrika, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya ah. balse yihiin kuwaas yaase ka dambeeya. This morning, several bodies, some with their heads decapitated and their genitals cut off, were littered around Benin City. Halkan waa magaalada Benin, xarunta burcada Black Axe. halkan ayay ahayd goobta Black Axe markii ugu horeysay ka soo ifbixeen 40 sano ka hor. Marbay nabad la xiriirtay, balse waxay noqdeen mid ka mid ah urur dambiyeedyada aadka looga baqo adduunka. markii aad xubinta ka ahayd muxuu doorkaagu ahaa? dilaabaan ahaa imikana gudoomiye ayaa noqdayba. shaqadaadu maqalis ayay ahayd inaan u dhameeyo. Dr. Stone oo hadda ku howlan in rabshadaha la joojiyo ayaa leh ragga Black Axe waxa ay galeen dhammaan qaybaha bulshada Nigeria. xubno badan oo baarlamaanka ku jira xitaa golaha fulinta ciidamada Nigeria kuwa badda iyo cirka garsoorka ayay ku jiraan baadiriyaal ayay ku jiraan. BBC da waxa la siiyay kumanyaal dukumeenti oo u muuqda inay taageerayaan eedaha in siyaasiyiin ku lug leeyihiin. kani waa Agosto Bamhigo waxa uu xubin ka yahay xisbiga ABC ee xukunka Nigeria haya. cadaymuhu waxay muujinayaan inuu ka mid ahaa madaxda Black Axe uuna ka dambeeyay burcadnimo internetka oo malaayiin dollar ah. waa madaxa urur dambiyeed tani waa fadeexo in madaxa urur dambiyeedka uu siyaasadda u tartamo. ninkani waa isha bannaanka keentay xogta badqabkiisa darteed ayuu u qarinayaa in la aqoonsado. hal sano 2 ilaa 300 oo jeer ayaa dil laygu hanjabay. dadkan waxay awoodaan dambiyada ugu foosha xun. eedahana waxaan u dirnay Bamhigo marna nooma uusan soo jawaabin. FBI da waxay ku xirtay Mareykanka iyo Koonfur Afrika in ka badan 35 xubnood oo kooxda Black Axe ah waxaana lagu soo eedeeyay burcadnimo internetka oo malaayiin dollar ah. Black Axe ma sii ahan burcad Nigeria ka jirta ee waa burcad dambiyeed dunida oo dhan gaartay.